السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاش نفس أبتدون ما أنتو حاربة أرين runtii cajaa'ib ah oon ogahay qof kasta oo muslim ah inay qalbigiisa taabanayso inay idiin soo gudbiyo. Waxaad maqlaysaan garaac ama gow waxa leh oo kayg yeeraya shanqar agtayda ka yeeraysa. Kiniisad baan ag marayaa. Kiniisadda maanta kale waa Axad, waa maalintooda maalmaha ugu weyn ee waxa weeyaan dadkan aan isku diinta ahayn diimahan kala haystaa ay xoog u taageeraan. Marka garaacitaankaas ayagu wuxuu uga dhigan yahay aadaankii oo kale, maadaama 11 markii la gaaro ay salaadahooda iyo hawlahooda ay galaan. salaadihii mayne ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu hada ugu talagalay soo hadeeyay ay hawlahooda galayaan. 11 ayay galaan meesha annaga qodbada yoomul jumca ay maalin weyn inoo tahay, ayaga Axadda ayaa maalin weyn u ah. ha ahaatee gawdaas ama dhawaaqitaankaas waxaa loogu yeerayaa 1 saac ka hor baa la daaraa in ma aragtay la yiraahdo annaka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu na siiyay diin macaan, xaya cala salaad, xaya cala alfalaax. meeshii laga oran lahaa ayaga gawdaas loo daaraa dhawdaas siduu u leeyahay saacad markay dhacdo oo 11 ay ku istaagto ayaa ma aragtay ay bilaabayaan ma aragtay hawlahoodii. laakiin halkaas dadka cibro ayaa ugu sugan. waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta macaan una siiyey, wanaaga una siiyey, nicmooyinka una siiyey. runtii markaad aragto dhaqamada iyo waxa weeyaan hadda dad baa gelaya, waxa weeyaan dadkii gelayay ma aragtay waa loo soo labisanay, suudad baa loo soo xiranayaa. suudadka loo soo xirtay waxa weeye dumarkii iyo raggii baa isku dhegdhegaya, isshushuminaya, waxaad dareemi kartaa diinta islaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu u fadilay diinta saxda inay tahay. waxa u cadaynaysa qof kasta ee xataa diintiisa jaahilka ah in ma aragta dumarkii iyo raggii la kala xadiday, midba albaabka soo galayo assalaamu calaykum, dumarkii ishambalyeynayaan, raggiina ishambalyeynayo, laakiin aan la isku dhex yaacasanayn, aan isku albaab laga soo galaynin, aan la isdhex ma aragta qaadaynin. taas waxay ku tusinaysaa diinta xaqiiqada ah, macaanka diinta islaamka. waxay ku tusinaysaa run ahaanta iyo ma aragta qiimaha diinta islaamka ay leedahay. qof kasta oo damiir islaamnimo ku jiro markuu caradan joogo wuxuu ka diiqadoonayaa, wuu nacayaa, wuu karhanayaa, marna kuma faraxsanaanaysa xitaa inaad dhex joogto. markaad aragto dhaqamada aan fiicnayn waad ka diiqadoonaysaa. intaas waxaad ka hor imaanaya 2 nin oo lagu leeyahay waa isqabaan oo waxa weeye gacanta isku dhagan, 2 gabdhood oo sidoo kale gacanta isku dhagan. diiqadaas marka qofka islaamka qalbigiisa waxay gelinaysaa ciriiri, waxay gelinaysaa in aadan dareemaynin macnaha sukuur, farxad, nashaad. waxa weeye alxamdulilah nicmada aad haysato markaad eegto iyo nicmada dadkan ka maqan caloosha ay ku xanuunaysa. qof kasta oo damiir dadnimo islaamnimo ay ku jirtana wuu nacayaa wadamadan inuu ku noolaado. ha ku noolaade ubadkiisa ugu koriyo, hooyada ama aabaha ubadkiisa ku barbaarinaya meeshaas dhagaxa laga garaacaya qaw laga siinaya ku korinaya. aad buu u damiir xun yahay, aad bay u damiir xun tahay. sababtoo ah ilmahan yari influence waxaa ku noqonaya dhaqamadan. markii 2 nin oo gacanta haysataa ka hor timaado, marka 2 gabdhood oo maaragtay afka iska shuminay ay ka hor yimaadaan, markii ilmihii yaraa oo maskaxdiisa xamili karin uu arko kaniisadan hooyoy waa interest ba ilmaha weeyaan, very curious weeyaan. kaniisada eegayaan, wax walba eegayaan, dhaqan kasta eegayaan. very embarrassing. aabba kasta iyo hooyo kasta oo awlaad dhalay oo qurba ku dhalay oo ku haya oo ku faraxsan oo ku labisanaya oo maxaa la yiraahdaa ku hor wadwada dhaqan cunugu. inta markuu maskaxdiisa hadhow cunuga adkaato wuxuu awoodayaa inuu kala jeclaan sideen oo kale. sababtoo ah maskaxdiisa la soo dhisay, diin baa ka buuxda, farxad baa ka buuxda, nashaad baa ka buuxa. ayakii inuu wax taruu doonayaa uu tacaawiyo. laakiin marka maskaxdiisii ay yadhahay, ilmo yar uu yahay, maskaxdiisa ay daciif tahay, ma haysto powerkaas uu isaga xajiyo waxaas ku soo dhacaya. waad aragtay qof dhan oo lagu soo dadaalay oo lagu soo tacbay baa wadamadan intuu yiri muddo daaqadiiba
saacadihiiba sanadadii ugu horreeyay 3 sano 4 ugu horreysay suuqa galay kuwa diinta la soo xafidsiiyay ama la soo ugu soo dadaalay oo inta la keenay baa maanta madaxa la baxay surweelku ka dhacaya xaalkoodu xaal yahay marka ilmaha yaryar ha loo arrimiyo haddii aad waalid tahay wad ilmahaaga kaniisadda qaylinaysa aad maalin walba ku garab hayso damiir xumo ayay kuu noqonaysaa aabba iyo hooyo qofkaa tahay guulaysta. Assalaamu calaykum waraxmatullah.